السلام عليكم أصحاب شرفت له بعد السلام مالمها واسك سحري هذا القرحين واسك يرى مشغولي مشغول كدب ما أنت waxaan qaadanayna grammarka iyo duwanka ku soo baranay iyo waxyaabo qaar oo intuuna uma doonaan grammarka muhiim waaye xoogo way ka duwan tahay qaabka luqadda wadnay yani way ka duwan tahay marka maqasho waxa waaye xoogo focuskaaga inuu bataa la rabaa grammarka waa waxa muhiim ku ah marka luqadda aad imtixaan ku galayso marka wax qorayso qaabka isku raacayaan waxa soo dhan grammar ay ku dhisan yihiin soo grammarkiina ina wax adag u aragtid ma rabo grammarku waa fahan iyo xafid waa ina xafidid waa because haddaan xarfihi grammarka uu yahay aadan aqoonin oo qaab dhismeedkii aadan aqoonin waxaan rule raacayaan waa rule based waa waxaan sharciga ku socdaan sharciga marka uu ku socdo haddaadan aqoonin maxaa adkaanayso waxaa adkaanaysa inaad imtixaanaadka ka shaqeysa adkaanayso marka haddii hadafkaad u yahay inaad imtixaanaad ka shaqeyso meeshaad imtixaantaa gali kartaa baasi kartaa heer fiican aad gaari karto waxaad fahansan tahay waxaad u baahan tahay marka inaad grammarka aad fahamtid marka erey kasto hal slide aad gooni u geliyey si markaasi aad isla markaas u qoran karto muraajaceyn karto hadhow haddaad dib u fiirsanaysane isan wixii cashir tiro badan oo hal mar hortaada ka muuqdo kuguna qanin wax kasta waan sheegaya hal slide oo gooni u sameeyey okay number 2 marka wax kasta inaan fahanno oo isla hayno waay waxaan ka bilaabaynaa marka what's pronoun maxaa la lahaa anaadu what's pronoun waxaan tirada dheer lam ka rabo waxaan ka hadlaa waa pronoun waa magac u yeel waay hadaa isku darnane pronouns aanane magac u yeelayaal Allah samaantaas waay magac u yeelayaal ama magac u yeelooyin whatever af Soomaaliga dhahda af Soomaaliga wareerebe waxa doonta dheh magac u yeel waa kaligiis ma koo yahay ma koo jamacayaan magac u yeelayaal ama wax alla waxa lagu taqaanada talent magac u yeelayaasha maxaa marka waa erey barnaamij lagu sheega waa erey loo isticmaalo booska magaca ama magaca marka noun waa magac name waa magac mesela markaan nin raga ka hadlayno jaamac markaan dhahno magac u yeelka u taagnaan lahaa jaamacaas waa laga maarmaa haddaan dhahno filson waa laga maarmaa mar haddii la sheegay kadib magac u yeelka loo isticmaali lahay aniga markaa magacayga mar sheego marka labaad magacayga muu baahni okay waa laga maarmi karaa because booskii magaca wixii qaadan lahaay oo lagu bedeli lahaay aan magac u yeel la dhahaa si kale markii la dhahane ka soo qaadbo jaamici aan ka hadlaynaa wax ka sheegoonaabo maxaa kula ninka jaamac ahaa intoo maraa ku leh marka maanta inaan ku dhaho jaamac wuxuu sameeyey jaamac waxaasuu sameeyey jaamac intoo mara jaamac intaa ku dhilay hal markaa jaamac kuu sheego qofka ka hadlaya waa isla ognahay soo maha marda marka jaamac mudan maxaa leeyahay asaga waxaanuu sameeyey asaga saanuu sameeyey asaga intuu ka baxay asaga qofkaanoo wacay asaga qofkaanoo la sheekaystay intuu sameeyey marka booskii jaamac maxaa qaatay asaga aa qaatay marka asagaas ingiriis ahaan ereyga u dhigmay waxyaabahaas waa waxaan baranayna okay marka pronoun magac u yeelo waaye ciwaanka kow ii qabo pronoun maxaa waaye magac u yeel waaye example maxaa marka tusaale ahaan Ahmed is a student markaa dhahno tusaale waaye Ahmed is a student Ahmed waa arday idan markii aan soo marayna cashirka maxaan dhahnay sideeda xasuusnaada waxay la mid tahay hal qof camal waaye hadda waa singular ay ku sheegay Ahmedna maxaa waaye magac waaye soo marka hadda magacii marka labaad waa ka maarmaynaa dhahnay inta maxaa noo yaal fiiri he is a student asaga waa arday booskii magacii maxaan ku bedelanay asaga he is a student asaga waa arday asaga waa arday markaa dhahoono maxaan dhihi karnay Ahmed is a student Ahmed waa arday marka meesha maanta dhan magacii soo celcelin lahayn booskii magaca waxaan noo bedelayo waxaa loo yaqaanaa pronoun magac u yeel okay marka intaas isla fahnay personal pronoun waa magac u yeelada shakhsiga marka hadda isaa ku jirto personal waa shakhsi pronouns waa magac u yeelo magac u yeelada shakhsiga laba loo kala qaadaa singular iyo plural kuwa oo singular ah iyo kuwa plural ah kuwa jamac ah yani kuwa shakhsi ka hadlaya iyo kuwa dad badan ka hadlayaan soo marka personal pronouns waxaan dhahnaa waa magac u yeelada shakhsiga ah magac u yeelo hore usoo aragnay pronoun oo ahay magac u yeel kaligiis jamacna magac u yeelaa dhahna isaa ku darnay markaan personal laga hormariyo waa shakhsi waay magac u yeelada shakhsiga ah xarafka ugu horeeya marka maxay noqonaysaa I
Soomaaliga soo qoran waa aniga I aniga markaad u baahan tahay inaad ereyga Ingiriiska aniga inaad tiraahdo waa inaad taqaan inuu I yahay. Okay. tusaalaha labaad oo personal pronoun oo singular maxaa waaye waa you adiga. marka qofka hor taagan aad dhigaysid adiga waxaan isticmaalay you adiga. Okay. marka waa inaad taqaanaa aniga adiga. waxaan ku dhahay grammarkana markiisa hore xafid waa inaad xafidid waa inaad taqaanid waa. Okay. personal pronoun-ka oo singular-ka oo haddana aan baranayno saddexaad maxaa waaye he asaga. he asaga ama isaga saa u dhahayd baab Soomaaliga qofka si u dhahda Soomaal. laakiin waxaa laga hadlayaa qof raga magaciisa hal mar isticmaalaynaa kadib booska magacyaalka aan isticmaali lahayn waa he asaga. she ayada. marka booskii meesha maxaa ka baxaya haddaa magaceeda marka hore isticmaalnay mar damba inaan magaceeda isticmaalna ma u baahnin. meeshii magaceedii maxaa isticmaalaynaa qofka dumarka ah she iyada. it shayga loo isticmaalaya ashyaada loo isticmaalayo waxyaabaha. haddii aad lab iyo dhidig u kala qaybiso waxyaabahaasne iyada ama isaga because labadaba waa dhehaynaa. marka it laga hadlaayo lab iyo dhidig ma kala lahan ama nin iyo naag ma kala lahan. marka ashyaa tilmaamayso she ayada waa dhigi kartaa asagana waa dhigi kartaa. haddaa labada u baahato midkii markaas af Soomaaligaada ku habboon waa u qaadan kartaa because it waxyaabaha nooleen iyo ashyaada loo isticmaalaa. personal pronoun oo plural marka waa kanay we waa annaga. annaga markaad dhegaysid markasta waxaa xasuusnaataa oo aad u baahan tahay inaad we isticmaasho waa inaad adig ku dhex jirtaa. we annaga markaa ayaa ku jiro macnaa aniga hadlaya ku jiro. adiga markaa annaga dhegaysid yaa ku dhex jiro macnaa adiga oo hadlaysid yaa ku dhex jirtid. marka we waa annaga markaas macnaa qofka hadlaya ku jiro. si kale hadda aynu kugu sheeganay gadaal dambe ku arkaynaa hadhow I oo aniga ah jamaceeda markii la jamciyo we noqonaysaa annaga. so marka we waa annaga waa personal pronoun ama personal pronouns-ka waa qaybteeda pluralka waa jamaca waa adiga iyo asxaabtaada markii la isku daro maxaa dhinaca we annaga waxaa isku dhaysiin marka idinka iska hadlaysiin annaga. you idinka ereyga you horaa usoo marnay singularka adiga lehed soo mahayn. markay dadkii bataan ay ku hor joogaan mis bedelayso you adiga hal qof hadduu yahay dadka hadday bataan ay ku hor joogaanne you idinka mis bedelayso. marka you keliya maxaa isbedelaya hadhow fasiraadda isbedelayso iyo magacyadii wixii plural noqonayaan mahane adiga iyo idinka waa you keliya. they iyaga maadaama aan you adiga waa you-na adiga le waaye theyda intay ka imaad marka ayaga intay ka imaaday waa she oo ayada ahayd markaa jamac ka dhigaysid they waay. he markaa jamac ka dhigaysid oo asaga ahay markay bataan oo ayaga aad dhigaysid dad badan yihiin rag badan yihiin ayaga they aa isticmaalaysaa. it markaa jamac ka dhigaysidne they la isticmaalaysaa. gadaalna waa ku arkaynaa waa soo laabanaad waxaa kugu sheegayna maskaxdaad sii maqasho hadhow dib aa waagteen haddana. okay hal mar aan kusoo celino I waa aniga you adiga oo hal qof marka ku taagan aad dhigaysid adiga. he asiga. she iyada. it shayyaasha ama waxyaabaha loo isticmaala aan nooleyn iyada amba asagana waa dhigi kartaa haddii oo shayga isticmaalaysa laba dhidig waa midkood dhawaaqaada uu kaa yahay. we annaga. you idinka. you loo mara soo laabanaysaa marna waa adiga marna waa idinka. they iyaga. okay marka hadda marka si kale aynu kugu sheegaa marka isla aydii iyo wiigii iyo yugii aan soo baranay haddaa dhinac kale u fiirino af Soomaali aad taqaaniin aan kugu sheego marka aniga hadlaayo luqadda Ingiriiska waxaana aniga first person singular af Soomaali aan kugu sheegaa singular kan first person kala waa qofka koowaad ee hadlaayo. kasoo qaad aniga adigana inta wana kula hadlaayo aniga maxaan aqaanaa qofka koowaad ee hadlaayo. qofka koowaad ee hadlaayo aniga waaye. okay we annaga waa first person oo plural waaye laakiin
we markaa dhahno annaga waxaan nahay dadka koowaad ee hadlayaana maxaa anagoo badan hadlayno markaan annaga waxaan rabnaa annaga saan waay annaga adhina soomaan annaga first person oo plural waay okay si kale haddana fudud aan kugu sheegaa garamarka waxay ku waalin haddaa lacala I aan ku tuso aan ku dhaho jamceeda ii sheeg we aan kaa rabaa I we haddaan ku dhaho I oo aniga ah jamceeda maxaa waaye we aan kaa rabaa intaas misla fahmi okay second person oo singular ah qofka labaad second waa labaad waay first koowaad soomaan second waa labaad ingiriiska second person singular yani qofka labaad ee lala hadlaayo oo hal qof aan ka hadlayna markaan because aniga adaan ku leelahay soomaan you marka waa adiga hal qof markuu yahay adiga waa qofka labaad ee lala hadlaayo kii hore waxaan qofka koowaad ee hadlaayo singularkiis I ahead plural-keedu we ahead second person singular qofka labaad ee lala hadlaayo markaan waa qofka labaad ee lala hadlaayo adiga waa you adiga jamceedana maxaan dhahnay idaada waa sheegnay you le waay idinka adiga dadkii kugu soo bateen idinka la leeyahay bas waa second person singular qofka labaad ee lala hadlaayo okay third person singular ne qofka saddexaad ee laga hadlaayo waay laga hadlaayo markaan xani naqatay third person singular qofka saddexaad ee laga hadlaayo isaga markaa dheen manala jooga waa may waa isaga waa qofka saddexaad ee laga hadlaayo xanoo kale naqanaysaa he isaga she iyada it shay ama waxyaabaha nooleen loo isticmaalaa waa iyada ama isaga okay third person maxaa dhahnay waa qofka saddexaad ee laga hadlaayo iyada saan waay ayada intay ka bacda ayada qofkaan isku ayada markaa dhown maxaa waay waa xan waay third person qofka saddexaad ee laga hadlaayo singularkoodana saddexdan waay tan singularkeeda saddex waay waa he she iyo it intaanba waa third person singular waay jamcoodana hal xabay wadaagaan aan ku dhahay they waay they ayaga intay ka baxeen ayaga waxaana sameeyeen ayaga dhan soomaan third person qofka saddexaad ee laga hadlaayo waay okay shape to be intaan gelin intaasa casharkeena maanta ku koobeynaa si markaasi oo yani wixii aysan garaamarka u badanin qofku u fahmi karo fiidiyowga u gaabto u cesho karo qaybta koowaad kana ku dhaafeynaa qaybta labaad waxaan ka hadlaynaa shape to be-ga iyo qaabka ay u shaqeeyaan hadda waxaa baranaysaa keliya aniga annaga adiga idinka ayada isaga yani ayaga waxyaabahaasa baranaysaa bas hadda marka sidaan waxaana ahani kana aloodo hadda aan gudagelaynaa marka cashir koowaad cashir ku dheeraan intaa ku joojina intaa muuqaalkiisa xiga ayaan kula kulmayo waxayna kaga tegayaa horumar iyo caafimaad